السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوري ولا الصومالي جرينا سحبتيدا waxaan rajeynayaa inay caafimaad fiican tihiin. markasa shambayaalka aniga balan qaada ayaa maanta soo iibiyey waa soo wada gada marka halaga raalaada waqti qaatay qof hawsheeda iska badanahay banaankana waan kasoo sameeyaa gurigana waan howlna waan ka qabtaa marka waa wada mahadsantihiin asxaabteyda. maanta waxaa rabaa inaan tuso shambayaalkii. marka shambayaalka waa kuwanaa kan duwan lahaa kan shaambadan argan maanta karo soo sheegay waa shaambooyinka timaha u fiican maanta ka hadlaynaa iyo maaska cream iyo maaskayaal kaleete saliida amladan footada way tusaa. shaambadan waxaa lahaa Garnier zanjabiil waay ayadana timaha jag way u fiican tahay waan ka hadlayaa. iyada maaskigeeda waa kana iyo waxaan ka hadlaynaa maaska creamka. marka aniga timahayga dry waaye waxaan isticmaalaa shaambo timaha dry loogu talagalay. marka waan iga bala qaadanaa shaambooyin maaskayaal ni soo gelinayo timaha dry maadaama aniga timahayga dry yihiin. dadka kaleetana gaamkaaneyt anigaan ahaay markadaaneyt waxaan nila talaa isla markadaaneyt aad ka dhex heli doontiin timaha normalka iyo timaha oo bukliga haddii timaha aad laalaab qabto. marka hadda bismillah waa bilaabeynaa. waxaan ka bilaabeynaa midaaneyt shaambadan aad iyo aad ugu fiican tahay. waxaa lahaa Kandu si fiican loo arka. shaambadan Kandu lahaa aad iyo aad ugu fiican tahay. avocado ayaa laga sameeyey waxaa ku jira avocado iyo shea butter. shea butter aad iyo aad ugu fiican tahay waa geed dhirka baxda Afrika oo jirka oo qaleelka daaweyso timahana qurxiso xataa cosmetic iyo makeup waa loo isticmaalaa shea butter. marka shaambadan waxaa lahaa avocado Kandu. shaambadan aad iyo aad ugu fiican tahay timaha dhan way kala bixinaysaa gogo way ka yareynaysaa. haddii aad tahay qof timaha isku dheganaay ama qof timaha maaragta dadka qaarkooda timaha markay qaleel yihiin fooda hore saani ka tahay fuqshu camal ka tahay marka kaas xataa way ka baabiinaysaa. marka please close the door please, thank you. marka shaambadan ay timjeeda haddii timaha xataa jinjin camalka ay jeeda oo saan qaleel sasi wadiin xataa shaambadan aad iyo aad u fiican tahay. waa avocado iyo shea butter nafaqo fiican ay timaha ku siinaysaa. ani maasha Allah natiijo fiican aan ka gaaray. gogo way baabiinaysaa timaha dhan way ku kala bixinaysaa. timaha markay ku kala baxsan yihiin waxaa ku fahmaysaa xataa dharkiisa meesha jooga because timaha qaarkood waxaa loo maleeyaa inay gaaban yihiin laakiin just waxa way isgaleen mala shaleynin malaga shaqeynin marka mala soo bixinin. marka shaambada aad u fiican tahay tinta way kala bixisaa nafaqay siisaa gogo way ka yareynaysaa kaali arag qurxi timaha ka dhigaysaa. Kandu ayaa lahaa shaambadan aad iyo aad u fiican tahay. conditionerkeeda waa helaysaa tan marka waa kaasaa hadhowna waa ka hadlayaa mid mask conditioner ama shaambooyinka. soo shaambada labaad midaan waay midaan inta karo waa kasoo hadlay. shaambadan aad iyo aad ugu fiican tahay haddaa timahaada ay anjig yihiin wallahi iidan aad u fiican tahay. waxaan ka helay organic waaye labadoodaba organic waaya free paraben iyo free sulfate waaye. marka midaaneyt argan oil waaye waxaa waaye timaha reparation ku sameynaysaa meelaha anjig iyo waxaas timaha gogo ayana way isku samaysaa gogo badan way ka yareynaysaa because timaha markay qaleel yihiin aad gogo waxa waaye anjignimada keenaysa inay tinta gogodo soo way ka yareynaysaa waxaasoo dhan kaali arag timahaada qurxay ka dhigaysaa. argan oil ayaa laga sameeyey ayadana natural waaye free paraben waaye aad iyo aad ay u fiican tahay. waxaa ka helaysaa geedkan online haaska ayaa lahaa online aa ka helaysaa ama dukaamada dhan waa ka helaysaa suuqyaalka haddaad tagtid waa ay taallaa. argan oil ayaa laga sameeyey argan oil aad ay u fiican tahay timaha anjiga wejiga anjiga waa anti aging aad iyo aad ay u fiican tahay. google waa tagi kartaa benefit of argan oil ayaa ku qori kartaa aad iyo aad ay u fiican tahay. midaan timaha iidan gogo way ka hagaajisaa timaha midaaneyt xariir ay kaaga dhigaysaa. waxay kaloo sameynaysaa hydration ay sameynaysaa timahaada inay anjig yihiin dhan ma dareemaysid kaali arag qurxi tinta kaaga dhigaysaa iyadana. waa kana argan oil waaye. marka shaambada mid labaad waaye inta koran shaambo waa kasoo hadlay
shaambada saddexaad midaan waaye iyada timahaada markay anjig yihiin way fiican tahay iyadana waa soo isticmaali ilaa hadda marmarka barkiis waa isticmaalaa waxa waaye zanjabiil iyo malab waaye ayadana free baraben waaye shaambayadan aada u fiican waaye oo haddaad dry skin qabtid oo Yurub iyo meelahan aad joogtid iyo America waxaan ku leeyahay shaambadaaneti yes waa isticmaali kartaa waxay ka mid tahay shaambooyinka aniga oo wax ii tareen timaha anjiga marka tan waxaa laga sameeyey zanjabiil iyo malab marka aad iyo aad u fiican tahay revitalism waaye tinta markaa ku dhaqdo softy kaaga dhigaysaa marka tan waxay weli ku fiican tahay markaad amla sameynaysid markaa amla ka dhaqaysid inaad tan ugu dhaqdid zanjabiil iyo malab waaye zanjabiil shogaada timaha xataa waa lagu sameeyaa waa lagu qurxiyaa kali cuntii caafimaad kalimahan zanjabiisha taas ogaada marka shaambadan zanjabiisha waxay ku fiican tahay haddii madaxa dadka sensitive ka tahay shaambadan kindness waaye macnaha duu waaye macnaha aad fortum waan aad iyo aad aynu wanaagsan tahay idan timaha hydratation way siisaa timaha way ku kala bixinaysaa marka garnier lahaa tan markaa isticmaalaysa waxaa uga isticmaalaysaa conditionerkeeda waa kana asigana waa malabkii iyo zanjabiishi tan waa shaambadii tanna waa conditionerkii oo garnier meel kasta laga helayaa garnier marka saanitana conditionerka timaha uu kala bixinaa wuu ku shaleynayaa wuuna ku qurxinaa waa iska bixinaa tinta haddii aan joogtahay way u fiican tahay zanjabiilkii malabka shaambadan zanjabiil iyo malab laga sameeyey garnier lahaa marka waa kana waxaan ii tusay garnier waxaan ii tusay candu oo avocado shea butter waxaa kaloo nii tusay shaambadan arganka ayadana lagu dadaalo siiba arganka avocado tan way fiican tahay markaa amana iska qasanaysaa markaa caado raqiis laakiin tintaada haddii aada uga goyso midaan ku dadaal iyo midaan candu avocado aaday u fiican tahay dadka timahooda iskalkalaya haddaa tahan timahaada laga fahmaynin dhirirkiisa yaa midaana fiican midaan timaha way ku kala bixinay kuligooda way fiican yihiin laakiin waxyaabaha specific ah adiga qabtid haddaa kala bixinaysa timaha kalaba baxsan haddaa ratid oo markaa shalada gelaysa dhac kuu shalaya samayso midaan timaha way kala bixaysaa waa kaasaa iyo waxaa kaloo keenay candu midaan shaambada timaha way kala bixisaa markaygan candu lahaa heer Africa heer Kenya waa helaysiin aad iyo aad u fiican tahay hadda ay kasoo hadlay marka waxaan wadaa candu kan waxaa waaye mask cream ayaa lahaa flaxseed laga sameeyey waxaa ku jira aloe vera shea butter flaxseed ayaa laga sameeyey iyo vitamin A ayaa ku jira vitamin A aad uu nafaqo badan yahay kan waxaa waaye cream mask waa uu carfaya kan waxaa waaye ma laga dhaqaayo cream mask waa timaha markaad shilaysanaysid ujeedaa yaa markaad timahaada ay nadiif yihiin aad shilaynaysid aa marsanaysaa waa ku shilaysan kartaa tinta hadaartid inaad saansaan oo seexid hadaartid inaad si fiican u hagaagsasid kareenkan iyadoo martid hagaagsasid xataa sidiisuu ku ahaanaya waa cream gel oo nafaqo ah waa cream nafaqo ah flaxseed ayaa ku jira canduwa flaxseed ku jira dacar vitamin A butter shea ku jira aad iyo aad u caraf badan yahay tinta waxaa la mariyaa markaa dhaqdid ka bacdi markay kastoo roon yihiin caadi ku yihiin maalinta kale geedkana cream ahaan ayaa tinta marsanaysaa marka kan iskama dhaqo mala iska dhaqaayo caadi ayaa loo maraa flaxseed ayaa lahaa aad u caraf badan yahay flaxseed aloe vera shea butter ayaa ku jiro iyo vitamin A oo timaha nafaqo ku siinayo haddii timahaada smooth kaaga dhigayaan haddii timahaada curly timaheena dadkeena Soomaalida camal aad iyo aad ugu fiican yihiin waana candu ha lagu dadaalo candu horta waxaa waaye timaha aad ugu fiican yihiin geedan been ma nii sheegaa wallahi kuligooda ugu fiican yihiin laakiin candu aad special u tahay candu waxaa waaye waxyaabo badan aad ka helaysaa oo timaha dadkeena u fiican Soomaalida timaheena bukliga iyo timaha liisha haddaa qabtid ugu fiican yahay marka maaskiga aad u carfayaa saliidana waa tanaa markasta waa laysoo weydiiyaa markasta waxaa la yidhahaa som green saliida see u taallaa saliida waa tanaa waa lagu qasaa hal saac markaa ku qasid waa ka dhaqaysaa tinta way kuu bixinaysaa aniga timaheyga way ii bixisaa ayada leen isticmaalaa ayada leen ku bixiyaa haddaa Kenya joogtid saliidan waa helaysaa marka ku dadaal marka waa kana alaabtan dhan aan isticmaalaa saliida waa kaasa oo ujeediin saani u taallaa geedka creamka shaambadan kale
oo jeedin marka waa kaasaa maanta halaas ayaa rabay inaan ii tuso kan waa kareemkii la marsanayay kan duwaay kan waa shaambada timaha ku qurxinayso ku nafaqinayso gogo kaa baabinayso timaha ku kala babixinayso haddaad tahay dadka timahooda isku dhadhagaaya kan waa shaambadii halkanka iyadana oo hydratation fiican timahaada anjiga hydratation siinayso gogo waxaas ka baabinayso kan kalena waa zanjabiishii conditionerka oo timahaada haddii sensitive yihiin ama haddii aad tahay qof wax oo kindness rabo oo kuu nafaqeynayo laakiin gogo haddaad rabto inay kaa baabiyaan kuwan gogo way fiican yihiin timaha haddii aad kaaga anjegsan yihiin aad u gogoayaan isku sineen ay ka hadlaysiin kuwan timaha way toosinayaan way kuu qurxinayaan saliidda amlin waxay kaaga caawinaysaa inay tinta kusoo bixiso inay gogo kaa yareyso inay timahaada iskaa sinto marka waa kaasa asxaabta halaasa yaraba maanta inaan ila qaybsado geedkan aad iyo aad u caraf badan yahay afka yaa la galin aad iyo aad u caraf badan yahay oo jeedii marka waa kaasaa alaabtan dhan waxa waaye timaha anjiga waaye marka gabdhaha timaha anjiga leh ha laga faa'iidaysto alaabtan dhan amlana timaha way bixisaa sidaan aniga marar nagu sheegay timahaygiida ay bixiso haddana waxay ku fiican tahay saliidda fooda hore mujeedaa fooda hore waa inay iskaa sinaataa mujeedaa fooda hore markay saas tahay mujeedin fooda hore mugeeda ijeedintiin kale marka of course amla tinta way bixinaysaa markastaa timahayga si isticmaalo waxaan arkaa inaysan tin yar ay ku darsoomayaan so yes amla tinta way bixisaa way shaqaysaa marka kaliya in lagu dadaalo waa oo natiijadeeda ku dadaashiin marka asxaabtii kheyraas ka ognahay insha allah waxyaabo kale waan soo gudbinayaa marka idinkana shaambooyinka haddaa soo isticmaashiin soo sheega waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad aa mahadsantihiin waa mahadsantihiin asxaabteyda